dibadbax looga soo horjeeday shirkii madasha qaran ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Zola Maxamed. banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa loogu soo horjeedaa shirkii dhawaan lagu gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waa kuwan qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo dareenkooda ka hadlaya. sheegaya ummadda Soomaaliya inay ogaato cadawgeeda cadawga Soomaaliya waa inaad ogaataan waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Maxamuud Ismaan Jawaari waa niman gaalo u adeegayo waa niman aakhira doonaya waa inay dhaqanka u yimaadiin. عمر وقاس مؤمن معها وقاس ورير إسلام وقاس كبيش حواد له أما ومدى الصوماليات وقاس حسن وقاس خليل وقاس رومي وقاس رومي الله كقول كان عدو قاعد يوصل مرين عرضه هنا عريري جنيان صومالي هاوقات كم ما أنت واحد لقبنا بحية لما عندغن إيا لهين دوب تونا ayay wada gumaysiga dadka ku adeeganayaan oo Sheekh Maxamuud ka mid yahay waxa diidanahay ugaasyada Soomaaliya kuwa imaamada banaanka laga siiyay ma ahayna kuwa idniga helayay kuwa soo jiraan helayay ugaasyada Soomaaliya way sheeganeen dalka gumaysiga uu ku jiraa hadday Baydhabo isugu tageen iyo hadday Garowe isugu tageen iyo hadday Xamar isugu tageen waa intii xabsiyada loo sameeyay ma Soomaali baan idin leeyahay duuba waasku wuxuu leeyahay magaalada Baydhabo anaga ma lihin waxaan leenahay meel waas lagu dooro waas la dhoo xawaad la loo dhiibaa dadka kale too xawaad la duubto Baydhabo anaga uma dhalan Xasan Sheekh Maxamuud ha dhaco Jawaarina ha dhaco waxaanu hadlayaa shacabka reer Hiiraan Xasan Sheekh Maxamuud ha dhaco halkaas ayaa ugu baxaya ma ahan markii ugu horeysay ee banaanbax ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Zola Maxamed, TV-ga caalamiga Somali Channel, Beledweyne.